فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii وعن أبي سعيد، khaasatan waxaanu maraynay kitaabkii iyo baabkii looga hadlayay salaada taطawuca ah. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi awtiru witriya oo salaada witrkaa tukada qabla an tusbixuu intaadan waa beriisanin, intaanan subaxu markaa dhalanin. rawaahu muslim baa xadiid ka wariyayo wuxuu tilmaamayaa saan soo tilmaannay witrigu inuu yahay salaad habeenkii markaa loogu talagalay. waana soo tilmaannoo kala degdega subaxa dhalashadiisa salaada witriga ah. anna الnabiya sala اllahu calayhi wasalam qaal wuxuu yidhi awtiru witriya oo salaada witrkaa tukada qabla an tusbixuu intaadan subxaysanin. walibni xibbaan man adraka qofkii haleela oo ku soo gaara asubxa subaxa uu ku dhasho waaye oo walam yu'tir aan witrinin falaa witra lahu, witri ma laha. witrigii wakhtigiisii wuu dhammaaday. qof allaala qofka subaxa uu ku haleelo subaxa uu ku dhasha man adraka subxa oo falaa yu'tir oo walam yu'tir dheh aan witrinin falaa witra lahu, wax witriya markaa uma sugnaanin. riwaayadan ayduna waa saxiixoo waxay tilmaamaysaa qofku inuu subaxa kala degdego kalana hormaro salaada witriga ah. wacanhu qaala rasuulku wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam man naama qofkii ka seexda can ilwitri witriga aw amase nasiyahu hilmaamaa falyusalli ha tukado idaa asbaxa marka uu waa beriista ha tukado aw dakara ama uu soo xusuusto. rawaahu lkhamsatu, khamsadii baa xadiidkaa wariday ila nasaa'i mooyaane. xadiidkan asagana wuxuu tilmaamaa qofkii ka seexdee ka hurda salaada witriga ah amase iloobaba ha tukado mar allaala markuu subxaysta aw dakara ama markaa uu xusuusto. waana xadiid saxiixa. haddana waxaan soo tilmaannay qofkii subaxu uu ku dhasho ee subaxu uu ku haleelo asagoon weli witrinin inuusan markaa witri lahayn. waxaa suuragala in xadiidkan dambe loola jeeda man naama can ilwitri waa qofkii ka hurdaa laakiin subxiisa muusan sheegin. oo matalan qofkii ayaa seexday markaasuu islahaa witri waa soo xasuustay ama wuu soo kacay. wakhtigiisii muxtaadka ahaa ee loogu talagalo witrin jirayna wuu dhaafay laakiin subaxi markaa ma dhalanin. oo man naama can ilwitri buu yidhiyo ma dhin qofkii waa beriistaa. amaa riwaayadda hore waxay tilmaantay man adraka subx kani ma dhin qofkii subaxu ku soo haleelo, laakiin qofkii ka hurda markuu tukan jiray buu ka hurdoo dib buu u dhacay wuu kacay markaa wuu witrin karaa hadduu hilmaamana uu xasuusto saasoo kale. laakiin markuu leeyahay idaa asbaxa waxay tilmaamaysaa waa beriisi. ole waxay yidhaahdeen tan hore waxaa lagu xambaarayaa waa qof allaala qofkii inta dhahaya asagoo soo jeeda hadhow baad tukan doontaa waad cibaadaysan doontaa oo saa subaxu ku dhasho witri ma laha qofka noocaanoo kaasoo kale ah. amaa qofkan kale ee ka hurdee dar ayada allay uga timidba hurdo amase iska iloobay markaa waa uu tukan karaa. qolana saasay markaa yidhaahdeen.
laakiin xadiidku waa xadiis saxiixa oo can jaabir qaale wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man khaafa qofkii ka cabsada allaa yaquuma inuu kici waayo macnaha inuusan kicin buu ka cabsaday min aakhiri lleyl habeenka aakhirkiisa falyuutir ha iska witriya awalahu awalkiisaba dad iska hurdo weyn baa jira oo mar allaala markay seexdaan xataa mararka gobol ka mid ah salaadoo lagu jira soo kaca subxeed amase aan habeenkii toosi karin kaa awalkiisaba iska witreeyo waman tamica qofkii damac ka qabee rajo ka qaba an yaquuma inuu kaco aakhirahu aakhirkiisa habeenka qaybtiisa dambe qofkii rajo ka qaba inuu kacana falyu'tir ha witriyo aakhira alleyl habeenka aakhirkiisa waaya fa ina asalaata aakhiri leyl la tukado mashhuudatun waa mid la soo xaadire wadalika afdal taasaana fadli badan rawahu muslim baa xadiid ka wariyey qof allaala qofkii rajo leh oo hurdo fudud oo dhaqso kaca waxaa u fiican inuu aakhirka witriga ka dhigto weliba intuu qiyaam tukado salaada midda ugu dambaysa witriga uu ka dhigo aakhir leyl oo la tukado waa la soo xaadiraa waa xilliyaday malaa'igtu isbeddesho waana midda ugu fadli badan laakiin qofkaan damac ka qabin qofkaan rajo lahayn oo isdhahaya amay hurdo kula tagtaa awalku iska bilaabi karaa wuu iska witrinayaa cishaa'iga wixii ka dambeeyaba wuu samaynayaa waata abaa hurayra waan soo tilmaannay uu yidhi rasuulka saaxiibkaa waxuu ii dardaarmay inaan witriga tukada intaanan seexanin ka hor marka taana way fiicantao waa la sameeyaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan ibni cumara رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi nebiga إذا طلع الفجر فجرku hadduu dhasho faqad dahaba waxaa baxay oo dhammaaday كل صلاة الليل iyo والwitr salaad leyl la tukadoo dhan way dhammaatay witrigiina la mid ee fawtiruu witriya oo salaada witrkaa tukada qabla طuluuci الfajri fajarka dhalashadiisa ka hor intuusan salaada subax ay idinku dhalanin oo fajarka aan la gaarin witriga tukada waayo haddii mar talac uu yimaado waagu baryo waxaa dhammaaday salaadii habeenka la tukanayay waxaa dhammaaday salaada witriga wakhtigeeda ee fawtiruu witriya oo witrka tukada qabla طuluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa ka hor idaa طalaca hadduu طalaco uu soo baxo uu baryo alfajru waagu uu baryo waa mar allaala marka fajarku uu dhashee faqad dahaba waxaa baxoo dhammaaday kullu salaati اleyl salaad habeeneed dhammaan way tagto way dhammaatay waxaa kaloo dhammaaday watrigii iyo walwatru ee fawtiruu witriya qabla طuluuci اlfajri rawaahu tirmidiin baa xadiidka wariyey wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam xadiidka tirmidi hadda aan tilmaannay idaa طalaca alfajr faqad dahaba kullu salaati اlleyli iyo walwatru tilmaamahayo waa xadiid daciifa asaga laakiin sida la tilmaamay haddaannu soo marnay waa tii la yidhi qofkii ka hurda iyo qofkii hilmaama laakiin mar walba qofku waa inuu ku dadaalo inuu habeenka witriga markaa tukado subaxan uu kala hormaro mar walbana xilligaasaa loogu talagalay qofkaan keri karin inuu kacana ha iska hormarsado qofkii damac qabe aan hurdo weynayne gadaal ha u dhigto wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukada adduxaa salaada duxada salaada lagu magacaaba salaatu duxaa ee barqadii 4 ayuu tukanayay wayasiidu wuxuu siyaadinayay maa yashaa wixii uu doono intii ilaahay uu doonana wuu ku siyaadinayay 4 rakacadood ayuu nebigu duxada tukanayay bay tiri caaisha kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukada adduxaa barqada 4 buu tukanayay
waa salaada duxada wayaziidu maa yashaau wuxuu doonana markaa wuu ku kordhinayay oo inuu ka badiyaa dhici kartay. rawaahu muslim walahu waxaa u sugnaa muslim canhaa caaisha annahaa su'ilat in la weydiiyey hal kaana rasuulullaahi rasuulkii alla ma ahaan jiray sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukada adduxaa barqada? qaalad waxay tihi laa maya ilaa an yajii'a inuu ka yimaado min maqiibihi meeshuu ku maqnaa maahane. maqiibkiisii safar inuu ka soo gala maahine ma tukan jirin bay tidhi. walahu waxaa u sugnaa weli muslim canhaa caaisha maa ra'aytu ma arkin bay tihi rasuulallaahi rasuulkii alla oo yusallii tukanaya, rasuulka oo tukanaya subxata duxaa sunnada duxada ah qad weligay. wa innii aniguna la usabbixuhaa waa tukan jiray bay tidhi. saddexdaa waxay tilmaamaysaa marka hore caaisha waxay tidhi nebigu wuxuu tukan jiray duxada 4 wuxuu doonana wuu ku siyaadin jiray. haddana waa la su'aaloo nebiga duxada ma tukan jiray? mayay tidhi ilaa inuu safar ka yimaado ma ahane. weligay maba arkin bay tidhi asagoo subxada duxada markaa tukanaya, aniguse waan duxayn jiray oo markaa waa tukanayay. midda hore oo ay wariday ay leedahay ee nebiga wuxuu tukanaya duxadii 4 waxay ka hadashay waxay ayadu markaa aragtaye waxaa suuragal ah inaysan ayadu arkin caaisha nebiga oo duxa tukanaya ilaa inuu safar ka yimid maahane. taa dambana dhici karta in markaa loo sheegay dad markaa ku arkay oo ay saa u wariday ay tiri yusalli duxaa 4 wayaziidu maa yashaa. marka ay leedahay ee la yidhi ma dukan jiray nebiga duxada? mayay tidhi ilaa inuu maqiibkiisa ka yimaado maahane. meel uu ku maqnaa ama maqnaasho uu ka soo galo safarnoo markaa yimaado. markaa inay caaisha aragtay radia allaahu canha markay leedahay maa ra'aytu rasuula allah yusallii ma arkin nebiga sala allahu calayh wasalam oo subxata duxa tukanaya duxada sunnadeeda qadun weli oo ay aragtay keliya say horay u tilmaantayba inuu markaa ka yimaado safar uu ka yimid maahane. wa innii aniguna la usabbixuhaa waa sunnayn jiray bay tidhi oo waa tukanayay. wacan zayd ibni arqam anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi salaatu alawaabiin dadka awaabiintee towbakeenka badan salaadoodu xiina tarmadu alfisaalu waa marka ay nirguhu cagagubtaan, waa marka tarmad uu noqdou bacaadku kululaado. fisaalku waa ilmaha yaryarkay hashu dhasho, waa nirgaha markaa loola jeedaa ina lugahooda jilcano xilliga qoraxdu ay kululaato marka la gaaro way cagagubtaan. rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyay, waa xadiid saxiixaho salaatu alawaabiinna waa salaada duxada loola jeedaa. dadka awaabiintaee noqodka badan ee rabbi u soo laabta salaadoodu xilligeeda waa marka ay nirguhu cagagubtaan. salaatu alawaabiina waa salaada duxadee xiina waa wakhtiga tarmadu ay cagagubtaan alfisaal, macnaha waxaa loola jeedaa marka ramdiga iyo bacaadku uu kululaado. waa mar allaala markay qoraxdu soo adkaato xilligaa waa xilliga fadiiladeeda ah. mar allaala markay qoraxdu soo wada baxda wuu bilaabanayaa ilaa qoraxda dhartamaha ay ka istaagto. xilliga noocaas ahna salaada duxadu markaa way jirtaa. markuu bacaadku kululaado 4 saaciyo meelaha la gaaro waa wakhtigiisa ugu fiican uguna fadliga badan. marka salaatu alawaabiin waa xiina tarmadu alfisaal, waa markay nirguwa cagagubtaan. wacan anasin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nebiga man sallaa qofkii tukada adduxaa salaada duxa 12 rakca 12 rakacadood bana allaahu ilaahay lahu wuxuu ugu dhisaa qofkaasi qasran sar baa loogu dhisaa fi ljannati jannada dhexdeeda, guri baa jannada loogu dhisaa. rawaahu tirmidiyu wastaqrabahu wuu qariibiyo xadiisku waa daciif buu ula jeedaa. saa darteed salaada duxada 2 ayaa ugu yar. 4na nebigu waa tukanayay
ilaa wuxuu doona waa la tilmaamay ilaa intuu doonana waxaa dhici karta ilaa 8 rakac in loola jeedo. waayo nebiga sala allahu calayh wasalam fatxu maka markay dhacday asagoo qubaysanay umuhaani waatay u timid waxay tiri nebigu wuxuu tugtay 8 rakacadood duxayna markaa ahayd. marka xaaladaa waay, laakiin xadiidkaa tilmaamaya 12 rakacadood qofkii tukadaa guri baa loogu dhisaa. waa xadiid daciif ah. wacan caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi dakhala annabiyu nebigaa soo galay sala allahu calayhi wasalam beytii gurigayga fasalla duxaa duxadii buu tukaday 8 rakacaatin 8 rakacadood. rawaahu ibnu xibbaan fii saxiixiisa ayuu markaa ku wariyey. saa darteed xadiidku waxuu tilmaamayaa baa la yidhi 8 rakacadood. caaisha markay leedahay dakhala annabiyu beytii nebigaa gurigayga soo galay duxa 8 rakacadood ayuu tukaday. horayna waxay u tilmaantay in nebiga uusan duxa tukaninba ilaa an yajii'a min maqiibihi, ilaa inuu maqnaasho ka yimid maahane safar inuu ka yimid. markaa guriga uu u soo gelaya caaisha waaba macquul oo suuragal inuu ka yimid maqnaasho oo safar markaa uu ka yimid rasuulka sala allahu calayh wasalam. baabu salaati aljamaacati iyo walimaamati, salaada jamaacada lagu tukada wadajirka iyo imaamnimada ayuu baab markaa u yahay. baabu salaati aljamaacati iyo walimaamati. can cabdullaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi salaatu ljamaacati jamaacada salaad lagu tukado iyo salaada jamaacada afdalu way ka fadli badan tahay min salaati alfaddi salaada kelikeli loo tukado ب27 daraja 27 darajo ayay dheer tahay salaada jamaacada midda keli lagu tukado. muttafaqun calayhi. walahumaa waxaa u sugnaa muslim iyo bukhaari can abi hurayrata ب25 juz-a 25 juz 25 qayb bay ka badan tahay. wakada lilbukhaari bukhaari saasoo kaluu wariyey can abi saciid oo waqaala wuxuu yidhi darajatan darajo ayuu ka wariyey. xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaada jamaacada fadaa'il fara badan inay leedahay. qofka oo keligii tukada waxaa ka fadli badan salaad jamaaca inuu qofku ku tukado ee markaa uu yimaado. waayo salaada jamaacada waa la laalaabaa oo 27 daraja qofka loo laalaabaya. riwaayadaa tilmaantay ب25 juz-a isku hor imaad ma jiree midani waa haddii bay yidhaahdeen xagga darajada la tilmaamo. midaan ب25 darajo ma tilmaamina juz-i bay tilmaantay. waa qayba haddii loo tiriyo. darajo ahaan haddii loo fiiriyana waa 27 darajo. ama haddii 27 la yidhi 25na la sheegay waxba ka hor imaan maayo. waayo wixii badnaa waxa yar haddii la sheego kayr markaa anfinmaysa ka badan. wakada lilbukhaari can abi saciid waqaala darajatan darajay markaa xustay ayada. marka salaada jamaacada aad ha loogu dadaalo waayo fadli fara badan iyo darajo badan ayaa lagu gaaraa. wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi waladii macbuudkii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhartay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam laqad hamamtu waxaan hamiyey oo aan damcay an aamura inaan amro bixatabin qoryo in laysoo guro, inaan intaa rag dhaho bax qoryo iyo xaaba iisoo gura ayaan hamiyey. oo fayaxtadaba markaa lasoo qoryo guro oo intay baxaan xaabo ay markaa soo guraan. uma intaa kadibna aamura bisalaati salaada aan amro in la aadaamo oo fayu'adana lahaa loo aadaamo markaa markii xaabada iyo qoryaha la ii diyaariyo inaan dhohaye salaada ha la aadimo. uma intaa ka bacdi aamura aan amro rajulan nin oo faya'umma annaasa dadka uu hogaamiyo. in salaada inta loo aqimo booskii aniga salaada aan geli lahaa aan qof kala amroon dhaho dadka duji. uma intaa kadibna ukhaalifa aan u gadaal maro ilaa rijaalin rag laa yashhaduuna aanan soo xaadirin
الصلاة salaada ile mar haddii la xirto salaadii maxaa bannaankii gurigaa ku joojiyey salaadii waa inuu qofku ku jiraa ilaa inuu cudurdaar leeyahay maahane intaa ka bacdi buu dhahay nebiga inaan rag wato oo aan u gadaal maro rag ilaa yashhaduuna asalaa aan salaada soo xaadirin jamaacada oo fa uxariqa aan gubo calayhim korkooda buyuutan guryahooda aan guriga ku soo gubay rasuulku dhahay sal alla alih wasalam aan dab markaa qabadsiiyo taasaan markaa damcay riwaayadaha qaar waxay tilmaameen dumarka iyo ciyaalka iyo waxa haddaysan ahaan lahayn waayo dad waxaa ku jira meesha aan waajib ku ahayn inay jamaaca tukadaan waxaa ku sugan dad iska xanuunsanoo jamaacadii laga rabay laakiin cudurdaar leh marka taas darteed inaan u dhaafo oo dadkaasoo aan dembi lahayn guryahoodii gubtaan ayagu dab gaaro saa darteed bay raggaa ku fagteen dadka la badbaadinaya darteed waladii ilaahii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee low yaclamu hadduu ogaan lahaa axaduhum midkood waa intaan jamaacada imaanin annahu yajidu inuu helayo carqan laf samiinan oo buuran cardag waxaa loola jeedaa waa laf hilib leh hilib fiican leh oo samiin ahoo buuran aw mirmatayni waa laba majimood xasanatayni oo fiicfiican majimaha ariga qaybaha ugu hooseeya weliba oo haddana xasanatayn ahoo aad u fiicanoo inta si fiican loo kariyey haddii masaajidka laga cuni lahaa la shahida alcishaaa cishaay imaan lahaayeen way imaan lahaayeen buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam saa darteed ayaa manfaca adduunka iyo kii aakhiro kan adduunkay jecel yihiin waxyaabaha adduunka dheeftiisii dheefta aakhiro ta adduunka ay jecel yihiin waayo middaan adduunka ah way u jeedaan way qaadanayaan laakiin midda aakhiro waa xasanaad la kaydiyey qof ilaahay iimaan siiyey oo rumaysan maahane aladiina yu'minuuna bilghayb kuwa maahan aan in kale markaa ku far adeegi karin xasanatayni la shahida alcishaaa cishaha ayuu imaan lahaa muttafaqun calayhi wallafdu lilbukhaari bukhaari baa lafdiga iskaloo wuxuu tilmaamayaa axaadiista loo deliilsado in salaada jamaacadu ay waajib tahay ilaa cudurdaar qofka inuu hela maahane waayo nebiga sala allahu calayh wasalam oo nebi naxariis ah oo nebi hidaaye ah wixii uu u hamiyey inuu guri ku gubo wax sahlan maaha baa la leeyahay wax fudud ma aha rasuulka sala allahu calayh wasalam inuu caladaa hamiyo laakiin rasuulka sala allahu calayh wasalam ma uusan samaynin arrintaa shafaqo iyo naxariis dad jooga darteed wa canhu qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam afqalu salaa salaad midda ugu culus cala almunaafiqiin munaafiqiinta korkooda salaatu alcishaa'i waa salaada cishaa'iga iyo wa salaatu alfajri salaada subax munaafiq ma rabtaa inaad ogaato calaamadiisa laba salaad ku fiiri haddaad ka weysa masaajidka salaad cisho iyo salaad subax waa laba salaad oo ugu adage ugu culus munaafiqiintiisa la imaan karin walow yaclamuuna haddayse ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku dhex sugan labadaas salaadood la aatowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan ayagoo birada ku socdaba ha yimaadaane walow xab ayagoo gurguuranaya xataa way imaan lahaayeen laakiin ma yaqaanaan khayrka iyo wanaagga labadaas salaad ku jira fadliga weyn ee labadaas salaad laga helo sidaa darteed baa la tilmaamayaa salaadaha munaafiqiinta ugu culusaysan tukan karin salaad cishii salaad subax inay tahay sababtuna waxay tahay labadaas salaad waa mugdi iftiinkan oo kale ma jirana masaajidku mugdi buu ahaa lama arkaayo marka kii maqan iyo ka kale lama oga duhur iyo casr iyo maqrib waa joogaan ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas dadkay istustusaan buu dha ila subxaana wa tacaala walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila in yarmee rabbina ma xusaan subxaana wa tacaala marka labadaas salaad bee munaafiqiinta ugu dhib badanoo qofku waa inuu la dagaalamo marka calaamaadka munaafiqiinta suusan ugu sifoobin labadaas salaad qofka soo xaadira duhri casr way u sahlantahay iyo maqrib way suuqaba la marmarayaaba labadaas salaad laakiin waa laba salaadoodoo marna jiif laysku diyaarinayo marna la jiifaba walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku dhex suganna la atowhumaa way soo xaadiri lahaayeen wayna imaan lahaayeen walow xabwan gurgurasho baa ku yimaadaane ayagoo birada ku saqaya xataa ha yimaadaane way imaan lahaayeen muttafaqun calayh wa canhu qaal
ata nabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa u yimid ata nabiy nebiga rajulu nin baa u yimid acmaa indhoola ah faqaala markaasuu dhahay yaa rasuula allah rasuulka allow laysa lii iima sugnaan oo melihi qaa'idun hogaamiye yaquudunii ii hogaamiya ila masjidi masaajidka nin gacanta i qabtaa oo i kaxeeyo masaajidka i geeya horta melihi waxaan rabaa inaan gurigayga isaga tukado riwaayadaha qaarkood magaalada madiine hawaamkeedii xasharaadkeedaa badan wax i hogaamiye qaa'id fiicanoo masaajidka ii wadana melihi ma ii oggolaan karta inaan gurigayga ku tukado farakhasa lahu wuu ruqsayay nebiga sal alla calah wasalam bax buu dhahay gurigaaga isaga tuko falammaa markii wallaa uu jeestay ninkii dacaahu wuu u yeeray rasuulka sal alla calah wasalam faqaal wuxuu yidhi hal tasmacu nidaa aadaanka ma maqashaa oo bisalaada marka la aadaamaya xayi cala asalaa xayi cala alfalaax ma maqlaysaa qaala nacam haabuu dhahay qaala faajib buu dhahay nebiga sal alla calah wasalam haddaadba maqlaysa kaalay liibaan u imow kaalay salaad u imow wax aan kaaga celiya ma lehe imow buu dhahay nebiga sal alla calah wasalam ruqsa ma jirto rawaahu muslim baa xadiidka wariyey ninkii indhoolka haddii saan loo galay kii indhiisa qabay ka warramay walaalay oo aan rabinba inuu salaad jamaaca yimaado yaqaana waddada suuqa lagu aado keliya yaqaana waddada macaasida iyo magaalada lagu aado yaqaana waddada tijaarada iyo ganacsiga lagu yaqaano laakiin aan aqoonin waddada masaajidka lagu soo aado mar alaal marka aadaanka la maqlo ninkani waa indhool indha ma laha hogaamiye fiican ma leh magaalada madiine hawaamiya xasharaad baa laga yaabaa inay lahayd oo loo ruqseeyey kadibna rasuulku uu dhahay xayi cala asalaa ma maqashaa xayi cala alfalaax ma maqlaysaa qaala nacam qaala faajib buu dhahay nebiga sal alla calah wasalam imow rawaahu muslim baa xadiidka wariyey rag waa inay rag noqdaan masaajidka yaa camira guryaha ilaahay yaa camira fii buyuutin aadana allah an turfac wayudkara fiiha smuhu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi wاlaasaal rijaal buu dhaha ilah subxaana watacaala rijaal baa camirta laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah salaada alla maba ka mashquulisa beec iyo dikri mar allaala marka allahu akbar la yidhahda dukaanka furihiisaa yaqaana waxay soo aadayaan gurigii jannada ay ku dhisan lahaayeen rijaal buu ilaahay ku tilmaamay rijaal aan noqono dumarkaa guryaha lagu yaqaanaa dumarkaa suuqyada ku tukadaa dumarkaa guryaha iyo aqalada ku tukadee rijaal waxaa lagu yaqaanaa rijaal inuu masaajid yimaado sida aayaddu tilmaamayso rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa bayc saaan ka baxna in sha allahu tacaala وcan ibni cabaasin radia allahu canhuma can الnabiyi sala اllahu calayh wasalam qaal man samica qofkii maqla annidaa'a aadaanka falam ya'ti aan imaanin falaa salaata lahu salaad ma laha ilaa min cudurin cudur ma ahani haddaad cudurdaar leedahay waa gooni roob baa daaya waad soo bixi weysay waad xanuunsantaa jamacadii baad soo xaadiri weysay xataa waxaa laga sheegaa salafka hore ee saxaabada ma erkayn qof kadib dhacaya salaad jamaaca ah axadkood mar allaala markuu xanuunsan yahay waa la soo hogaamin jiray labadiisa lugood asagoo dhulku ay jiidayaan yaa saf kale soo fadhiisin jiray waayo salaadka tegitaankeeda xataa salaad meehe jamaaca keligeed oo laga tago yayuu arki jireen wax aad iyo aad markaa u weyn marka sidaa darteed ha la dadaalo shaydaanka inta la iska celin karo ha la iska celiyo qofkii aadaan maqla aadaankana aan soo ajiibin meesha laga aadaamay aan imaanin salaada aan geynin falaa salaata lahu ila min cudur rawahu ibnu maajah wadaar qudniy wabni xibbaan wاlxaakim waisnaaduu calaa shardi muslim laakiin rajaxa bacduhum waqfuhu xadiidka qaarkood waxay rajaxeen inuu mawquuf ibnu cabaas ku yahay laakiin xadiidku waa xadiid saxiix ah idan jamaacada aad ha loo soo xaadiro can zayd ibn laasud radia allahu canhu annahu sallaa maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisuu la tukaday ninkaas yaziid ah waa can yaziid bin laasud annahu sallaa maca rasuuli illaahi buu tukaday salaata subxi salaadii subxeed falammaa sallaa markuu tukaday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam idaa huwa birajulayn waaba laba ninoo lam yusalliya aanan tukanin laba nin meeshaa iska fadhisayba ma tukanin fadacaa bihimaa waa u yeehay nebiga labadaa igu wuxuu dhahay ama kaalay fajii'a bihimaa waa lala yimid labadii nin baa la keenay turcadu ayadoo ay boodboodayso faraa'isuhumaa kalxamahooda macnaha cabsi darteed ay saa u jaraynayaan maxaa laydinku samayn doonaa maxaa halayseen qaladka ay galeen nebiga haybad ay ka haybaysanayeen
yala jaraynayaan oo wadnahoodii iyo faraa'isooda ay markaa la boodboodaysaa. faqaala lahumaa, labadii nin wuxuu ku yidhi nebiga, maa manacakumaa, maxaa idinka reebo idinka manciyey an tusalliyaa macanaa inaad nala tukataan, an tusalliya inaad tukataan macanaa micigeena maca noola tukan weyseen. qaalaa waxay dhaheen qad salaynaa fii rixaalinaa, guryahaan ku soo tukanay. rixaal macnaha xaafadayaan deganay, waa soo tukanay. inta waxaan nimid annagoo salaaddii soo tukanay idinkala tukanaya. qaala rasuulku wuxuu dhahay falaa tafcala ha yeelin hadda wixii ka dambeeya, ha samaynina. idaa sallaytumaa haddii aad ku soo tukataan fii rixaalikum raxaaladiinnii meelaha aad deggan tihiin, uma adragtum aad soo haleeshaan alimaama imaam walam yusalli aan tukan oo markaa tukanaya, fasalliyaa macahu la tukada, la gala salaada, fa innahaa lakum naafila, sunna idiin noqonaysaaye. dad meesha iska taagnaan lahayd gal oo la tuko adoo horay u soo tukaday. hadday dhacdo inaad timaada masjidkii oo lagu tukanayo imaam haddana dadkii dujinaya, fasalliyaa macahu la tukada buu dhahay nebiga, fa innahaa ayadu lakum naafila idiin noqonaysaaye. sunnay idiin tahay. mucaadna wuu noo imaan doonaa mar allaala markuu nebigu la soo tukado ayuu qoomkiis intuu imaado tujin jiray. mucaad salaad mid ka mid ahna tii waajibka uga dhacday, midda kalena sunnay markaa u noqonaysaa. sidaa markaa yeela. rawaahu axmed wallafdu lahu baa iskale axmed waalhalaaatu way wariyeen, wasaxaxahu tirmidiy waa saxiix yeelay wabnu xibbaan. xadiidku waa xadiid saxiixa. sidaa darteed wuxuu tilmaamayaa hadday dhacdo inaad soo tukatay haddana aad imaam ku soo gaarta tukanaya, mid ka gal ama la gal, mid waxay kuu noqonaysaa naafila. naafiladuna waa sunna ama waa ku ziyaado. wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal